puntland weliba qardho saddex su'aalood baan fiirinayaa why ay u sameeyaan sidaas sababta maxay tahay maxuu yahay motivationkoodu ay u fidinayaan supportkaas labo institutionska isticmaalaan maxay yihiin halkee soo mariyaan caqabado miyay la kulmaan caqabadaha kale waxaa ka mid ah according to literature in ay bixiyaan lacag aad u fara badan markay lacag yar darayaan transactions aad u fara badan iyo kan ugu dambaysa oo ah sidee uu isku bedelaan haweenka Soomaaliyeed markay aadaan dibaddu ma isbedelaan roolkoodu responsibilitieskoodu careerkoodu and everything else around socio-economic status waxaan isticmaalaya marka qualitative research case study uu ahaa Indola oo magaalo province Zambia iyo Galkacyo iyo Qardho ayaan fiirinaya because waa meesha ugu xooggan ay saameynta ku leeyihiin bulshada ku nool Soomaalida ee reer Puntland ku nool Zambia dad badan ayaan wareystay waxyaabihii ka soo baxayna waxa ka mid ah inuu jiro xiriir ka baxsan humanitarianism xataa la oran karo waa development oriented waayo schoolska dhisayaan bridge Qardho iyo Boosaaso qayb weyn bay ka qaateen mar kale xataa bridge kale oo halaabay between Qardho iyo Garowe qayb weyn bay ka qaateen dhibaato kastoo dhacda not only really Puntland wadanka oo dhan aad bay maaragtay u jecel yihiin sababtoo ay tahay Soomaalida degan Zambia waa dad runtii waxyaalo badan ay mideeyaan la oran karin kaliya maaragtay nationality iyo kaliya ma ahan aad bay ugu xoogan tahay Soomaalinimadu oo dalka maaragtay in markastoo dhibaato dhacdo sida xataa maaragtay Ethiopia oo kale Kismaayo flash floods badan baa ka dhaca aad uga qayb qaata marka in la fahmo qaabkee uga qayb qaataan waxa muhiim horta magaalada Qardho inaad sawirkan aragtaan magaalada Qardho 2004 sidaas ay u ekeed oo sababta keentay in Qardho aan xoog saaro waxay ahayd aniga goobjoog u ahaa flash floods ka dhacay fatahaad ka dhacday 2020kii maalin ay tahay Ramadaan 2018kiina Qardho saasay u egtahay yani laba tog ba dhaxmara Qardho labadan tog ba labada gees ka mara maxay ahayto sidaas darteedna marka qaarkood roobab meel kale ka da'ay tuulooyin fog ka dhacay ba iska soo dhaxmara haddana waa lowland wayaan xoogaa Qardho marka laga hadlayo geographic survey ahaan marka aad buu hooseeyaa marka dhibaatooyin hadda dhow October waxa ka dhacay fatahaad laakiin xabad roob kama da'in Qardho xabad roob kama da'in sidii 2020 kale noqotay sababtoo ay tahay waxa weeye roob meel kale ka yimid ayaa soo maray haddana dadkii waxay ku soo dhawaadeen togaande ay ku soo dhawaadeen aad ugu soo dhawaadeen labada tog ee dhaxmara waxa rabaa inaad sawirka ay la fiirisaan waxa su'aasha waxa weeye meesha taala why ay Soomaalidu isu caawiyaan caawinta Soomaalidu ma wax shalay bilowday xaqiiqdii Soomaalidu dhaqankeena ayaa wuxuu yahay mid reer guuraa ah reer guuraagu markay safrayaan waxa weeye kuma tashadaan halkaasaad maqaayad kaaga hor imaan doontaa iyo ma ahan waxay fiiriyaan dad baa sugaya oo kale ama dad baa soo dhaweyn doona ay isku haleeyaan marka dhaqankaas anaga wuxuu noo yahay asal ahaan ayuu maaragtay already existing noo yahay ma ahan wax hadda u baahan in la fahmo xataa Nuruddin Faarax oo qoraa Soomaaliyeed ah wuxuu ku qoray buugiisa Sardines wax badan baa ku jira oo ka hadlayo arinta tan iyo Soomaalida in Soomaalinimada oo laakiin erayga xataa caawi walaal afuri walaal يعني waxyaabo maaragtay Soomaalida ay maaragtay ay not only in the religion dhaqan ahaan ayaa wuxuu yahay waxa maaragtay pre-existing ah sawirkan wuxuu idin tusinayaa the safety nets ee Soomaalida haysato for example zakat sadaqa qaran aniga waxaan ku jiraa groupyo kala duwan WhatsAppyo oo different levels ah according to my ethnic background oo loo baahan yahay support la bixiyo haday noqoto haween haday noqoto different things waxa jira dumaal yani haweenku imagine your hooyo waxa tahay sagaal cunug haysata and then you want your kids to be within the family so maahan aniga hadii odayga iga dhinto ilaahay ma keene yani ama dhibaato igu timaado carruurteedu inay reer ka fogaadaan ma rabi soo maahan marka waxyaabaha qaarkood waa inaad u fakartaa oo marka dumaal oo kale waa waxyaabaha isku caawiyaan xigsan ahaan tacsi afartan bax
toddobabax yani anthropologist baan ahay marka dhinaca anthropology-ga iyo dhaqanka ayaan u batay waxaan rabay inaan tusiyo dadka aan fahansanayn dhaqanka Soomaaliyeed sababta keenaysa inaysan ahayn wax shalay daraad bilowday ama ku la xiriira dagaalkii because that's the assumption dagaalkii baa bilowday Soomaalida way soo dhawaatay in la iscaawiyo ma aha laakiin we had this forever ayuu jiray and geographic locations kayga waa kuwaas yani iyo Zambia and waxaan u malaynayaa Safiyo waxaan rabaa inaan hal arin ka hadlo arintaas oo ah literature ereyga uu bixinayo definitionska diasporada ma ahan mid si fiican u turjubi kara diasporada maanta jirta ee Soomaaliya dad very transnational dad halkaasna jooga halkaana jooga yani dad aan maaragtay boundaries aan lahayn oo aan moodid in diasporada dhaqankeennii hore ee reer guraaga oo kale inuu realitygeeni maanta yahay marka inaan challenge galayaan rabaa the existing literature and la imaado a new theory a new way of explaining Somali identity in the 21st century oo sawir fiican ka bixinaysa motivationska iyo it is easy for someone who lives in Seattle inuu ku yahay connected Garowe ama meel kale ku yahay connected spiritually iyo mentally iyo psychologically iyo politically iyo economically iyo civil society uu ku yahay xataa connected ee tahay waxaan dhibaato lahayn oo dhibaato ma lahan laakiin dadka kale ma fahmi karaan sababta saas u dhacday Soomaalida marka in la fahansiiyo inay tahay wax forever jiray oo haddana uu sii xoojiyay maaragtay this mobility-ga ay hadda sameeyeen Soomaalida aad baan idinkaga mahadcelinayaa wax badan baan ka hadlo